بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. falkii uu habeenkii dhoweyd sameeyey guddoomiyaha gobolku sharci darro ahaa inuu dad intuu meel ugu tago oo uu dhangad qaato oo uu dhangadeeyo min ayna laka haada qaanuunka kuu baneeyey ee ku siiyey anigu ma garanayo. haddiise laguu soo sheegay meesha in dembi ka jiro ama anshax xumo waxay ahayd inaad boliiska soo kaxaysato, boliisku ay qabtaan, saldhigga boliiska la geeyo, la baadho. halkaas waddadaas ayay xaq u ahaa iyo qaanuunku. laakiin dhangadaad qaadatay. nin qof muwaadina ayaanu arkaynay oo aad dhangad la dhacayso. war waa sharci darro, waa dawlad xumaanu leenahay. arrinkaa ka bixi apology, raaligelin ka bixi. qodobkaa intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. madaxweyne iskuma hayn karaysid, jeebna wadagelin kari maysid jabuuti iyo eliteria, china iyo maraykan. masar iyo imaaraad, ruush iyo ukraine jeeb ma wada gelis. waxaa jeebkaaga gelaya waa itijaah siyaasadeed oo aad jeexatay oo aad u aragtay inay soomaali ay dani ugu jirto. laakiin bisad iyo jiir haada maa yasiir. maalin horena hadalkaa waan iri. qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. madaxweyne maamulka muuse biixi iyo SSC iyagana jeeb kuma wada hayn kartid. garbahaare iyo kismaayana jeeb kuma wada hayn kartid. soomaalinimada wixii u dana inaad ka raacdo ayaa aniga ila habboon. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya. maalintii dhoweed ee roobku da'ay aad baan uga xumaaday in waddooyinkii aad mari jirtay biyo gooyaan. waa ka xumaaday oo aad qardajeexdid oo aad waddada makal mukarrama kaga soo dhacdid meel aan habboonayn inaad martid. maxaa yeelay dee madaxweynihii dalkaa tahoo dexejeclo way naga kaahaysaa. sidaa darteed muqdisho waxay u baahan tahay draining casri ah oo biyaha geeya badda. mar haddii dhuumihii hore ee biyaha badda geyn jiray la awday, guryana laga dhistay. dhulkaana ninka bixiyey ee qaybiyey de waa adiga. markaa muqdisho dee way dumaysaa haddii roob da'aba oo meel la maro la waayo oo labadaa jidee yaryaree aynu haysanno ay go'aan. arrintaa iyada ah tala kaaga eg. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. madaxweyne dastuur aad u fool xun oo annagu ama soomaaliduba aanay samaysan baa imbigaati lagala yimi. wax badan baad waxaad tidhi dastuurka ha la dhowro. annaguna maanta waxaanu ku leenahay dee dhowr. anigu dadka qaba baanahay in la bedelo oo dastuur la sameeyo aynu leenahay oo ku salaysan diinteenna, oo ku salaysan dhaqankeenna, oo ku salaysan baycaddeenna, oo aynu de garan karno. sababtuu dastuurkaasi u daahayna waa siyaasad xumida soomaalida. inta la gaadhayo waxaan
kaa codsanaynaa inaad dastuurkaa dhowrtid qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa madaxweyne ikraan tahliil cadaalad bay u baahan tahay war ilaa balaaya habeen kama tegin hadalkii aad tidhi ee aad ku tidhi madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo bikulli ixtiraam waa taagan yahay oo ahaa ikraan tahliil cadaalad bay u baahan tahay mar haddaad ku guulaysatay saldanadii oo aad maanta fadhidid madaxtooyadii dee ikraan tahliil cadaalad inay u baahan tahay cali daacuun baa kuu sheegay qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين